سكده وحاسينيسان dadka macallimiinta iyo dadka masaakiinta inama sadaqatul fuqaraa wal masaakiin laba xarig le Abuukar Maxamed Xasan oo askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka koowaad ee guutada 14 Oktoobar waxa uu imaam masjid ka yahay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo kutubada diiniga uu ugu aqriyo jameecada Masjidul Rahma iyo bulshada ku nool magaaladaasi jameecada masjidka ku dukata ayuu salaad walba markii laga baxo qudbeeya isagoo dadka ku baraarujiya gudashada waajibaadka diiniga ka hortagga ficilada gurcan ee argagixisada iyo doorka muwaadinka ee ka qayb qaadashada dhismaha dawladnimada xoolaha la biraynayo nabiga wuxuu naamray kaleey salaatu wasalaam in loo raaxo bir afla lagu biray ayagana qof muslim ay qabtaan oo shahaadanaysa halka ay ka saaraan ay ku riixayaan si leeyihiin Allahu akbar wadaad culimada kamida wuxuu yiri al-shabaab Allahu akbar inay dhahaan oo malaysiin Allahu akbar ay dhahaan ilaahay akbar ay dhahaan Allahu akbar maxay qof muslim Allahu akbar dhahay qof muslim ma dilay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa ku booqatay furinta dagaalka ee uu difaaca kaga jiro waxaana uu inooga warmay waxa ku qasbay in isagoo ku hoolan xoreynta iyo difaaca dalka uu haddana imaam noqdo waxa ay ugu kaliftay markii aan magaalada galnay 2 sano ku dhawaad ka hor 2 sano ka hor markaan magaalada galnay masaajid ku yaal magaalada Masjidul Rahma ayaan ku dukanay marka anagoo badan ku dukanay oday waayeel ayaa wuxuu yiri ciidamada dawladda wax dukada miyaa ku jiro saas daraadeed inaan ka miro dhaliyo sharafta ciidamadana dib u soo celi raba ayaan wacyigelinta meeshii ka bilaabay waana sii wadnaamana ku daali doon insha Allah dadaalka uu wado laba xarig la Abuukar ayaa aad u soo jiidatay bulshada ku nool magaalada Marka taasi oo keentay in shacabka ay ciidamada la wadaagaan xogaha ku saabsan argagixisada iyo in sidoo kale ay door muhiim ah ay ka qaataan adkeynta ammaanka waxaan ku soo kordhinay in la is aamino ciidamada xogta la siiyo ay nala shaqeeyaan shacabkina ay si fiican u aaminaan ciidamadana inay ciidamo akhlaaq leh oo balwad aan lahayn oo xooha diyaarsan in ciidamada ku jiraan sida bulshada mid fiican iyo mid xun ugu jiro kale in ciidamada ugu jiraan ay ogaadeen fikirka bulshada ay ka haysatay ciidamada qaranka ayuu bedelay waxaana uu inoo sheegay markasta in dadku uu wacdiyo uu kula dardaarmo qarannimo iyo isku duubni si ay isaga difaacaan cadowga arxanka daran marra minkum mukaran falyughayyiru bi yadihi fa lam yastati' bi lisanihi fa lam yastati' bi qalbi wadalika aqul iman munkarka ay hayaan iyo been abuurshada diinta islaamka annaga ay gacanteeda u tagay culimadii waxay ka rabnaa xaqana cadeeyay shacabka Soomaaliyeed oo caamada waxa laga rabaa qalbigeena ka dhacaan ciidamada u kaalmeeya duciyaan waa jaamici ka qalin jabiyay mid ka mid ah jaamacadaha dalka ku yaala ciidanka xoogga dalka inuu ku biiro ayuu go'aansaday kadib dhacdadii murugada badneed ee Soobe oo argagixisada ay ku xasuuqeen dad shacab ah taasi oo xanuunkeeda uu ka seexan waayay jaamacad ayaan ka soo baxay kulliyada tarbiya islaamiya xirow ayaan ahay anoo xirow ah oo jaamacadda ii dhamaatay oo isla master degree diyaari ayaa qaraxii foosho xumaay ee Soobe ex control Soobe ayaa dhacay baaqi madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan aqbalnay dadkii ugu horeeyay oo aqbala ayaan ahayn darteed ayaan ugu kaliftay inaan ku soo biirno ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inta Soomaaliya meel ka mid ah ay ku sugan yihiin argagixisada ayuu laba xarig leh Abuukar sheegay inuu dagaalamayo oo uu xureynayo dalka isla markaana uusan ka hari doonin nabadiidka meel kasto ay galaan dagaalka al-shabaab lagu jiro waxaan ka qaadanaynaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabta rasuulka ugu horeeyay Ali ibn Abi Talib dad Ali ibn Abi Talib dadkii jidka u galo inay dilaan isku dayay ay dilay janna inay ku galayaan sheegtay in la dagaalano diyaar ayaan u nahay annagoo Soomaali ah oo aqwaal kala duwan ay naga aamini karaan dadka ay ka dhaadhici karaan Ali ibn Abi Talib intuu noolaa jannada lagu bishaareeyay ayay inay janna ku raadsanayeen sheegeen dad khawaarij oo nabigeena noo sheegay kaleey salaatu wasalaam waan la dagaalameynaa intay Soomaaliya meel kamid ay ku sugan yihiin mana ka hari doon insha Allah dad badan baa waxay islaayeen madax iyo ciidan intaas aaminsan ma imaanayaan maanta ayaan haynaa jawaabta Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa sanadihii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ku soo biirayay dhalinyaro aqoon-yahano ah oo dalka wax ku bartay taasi oo keentay in muuqaalka iyo dhismaha ciidamada uu wax badan iska bedelo Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim warbaahinta qaranka magaalada Marka